السلام عليكم. هنقول قيانولي إن قف داعدا وايو داعني ماذا ياكو أول مرينيسا وحاجرين جيد جراء وسواح كستا شغليسا أوكالها حولو نوحو كهستا عالفاس أو مارأة وجيدها كجرو سواح أيو شغليسا سؤالي سيدي عادة أو أهيدبا جيدا أيو صوجري intii uu soo jaray faaskiisii ayuu jawaan weyn ku riday sidii uu u jiiday jawaankii ayaa faaskii ka dhacay wiil yar oo wadada maraya ayaa arkay faas wadada yaala isla markiiba wuu qaaday oo wuxuu u geeyay aabihiisa ayaa isdhahay faaskan qof baa zaad ugu baahanaya ee aan ku baadi goobo wiilkii yara aabihii ayaa faaskii wuxuu u geeyay boqorkii magaalada si uu u baadi goobo ninkii iskale faaskan boqorkii ayaa ciidankiisa faray inay meel kasta tagaan oo ay weydiiyaan qofkii faaska ka maqan yahay ninkii faaska uu ka maqnaa ayay ishaleen ciidamadii waxayna ku yiraahdeen faas miyaa kaa maqan ninkii wuu farxay oo wuxuu dhahay ciidamadii waxay u sheegeen inuu faaskiisa hayo boqorka markii uu imaaday boqorkii waxa uu damcay inuu ninkan imtixaano haddii uu ku guuleysto si uu u abaalmariyo haddii kalena uu u ciqaabo boqorkii ayaa soo qabtay faas dahab ah oo ku dhahay ninkii geeda jaraha ahaa warka miya faaskaaga ninkii ayaa soo booday oo yiri maya boqorow ma ahan keygii boqorkii ayaa soo qabtay mid kale oo qalin ah kadibna weydiiyay sidii hore balse ninkii geeda jara ahaa ayaa isaguna ku warceliyay maya boqorow ma ahan keygii boqorkii ayaa markii saddexaad soo qabtay kiisii oo maarta ahaa ninkii ayuu weydiiyay warka ma faaskaagi baa ninkii ayaa aad ugu farxay markuu arkay faaskiisii wuxuu ku dhahay boqorkii haa boqorow waa faaskaygii boqorkii wuxuu la yaabay ninkan daacadnimadiisa wuxuuna ku abaalmariyay faaskii dahabka ahaa iyo kiisii maarta ahaa faaskiisana wuxuu siiyey markasta noqo qof daacad ah daacadnimadaada ayaa ku abaalmarinaysaa walaalkaygii ama walaashaydii noqo qof daacad mar waliba waxaad noqonaysaa qof run sheega oo Ilaahay ka cabsada. والسلام عليكم.